kulan wacan wanaagsan dhageystayaashana qiimaha iyo qadarinta mudan oo meel walba aad naga daawanaysaan halkan waa warbaahinteena Nogo Media warkana waxa idiin soo tabinaya aniga wariye Kaafi Qoystiye Cabdullaahi Hiirad aan ku bilowno qodobada wararkeena ugu door karoon ciidamada Puntland ayaa ugu dambeyntii gudaha u galay fadhiisinta ugu weyneed Daesh dawladda federaalka ayaa tallaabo ka qaadaysa wakiilka midowga Afrika oo taageera al-shabaab kuwaasi waxay hayaan kuwa warka ugu door karoon haatan ku soo dhawaada warkii oo fidsan ciidamada Puntland ayaa ugu dambeyntii gudaha u galay fadhiisinta ugu weyneed Daesh ciidamada ammaanka ee Puntland ayaa maanta mar kala qaaday howlgallo culus oo ka dhanka xubnaha kooxda Daesh ee ku sugan buuraha Calmiskaad kuwaas oo muddo dheer ku dhumaalaysanaya deegaanada adag oo buuraley ah howlgalkan ayaa si qorsheysan loogu fuliyo dhowr jiho oo lagu beegsanayo xarumaha muhiim ah oo kooxdaasi ku lahaayeen gobolka bari wararkan ayaa ka soo baxaya saraakiisha lagu tilmaamay in khasaaro culus lagu gaarsiiyo kooxdaas loogana qabsaday hubiya sanad ciidamada Puntland ayaa waxay xooga saareen weeraro lagu bartilmaameedsanayo toga Miraale oo caan ku ahaa in xarunta ugu weyn ee Daesh gobolkaasi dagaal xoogan kadib waxaa lagu guuleystay in laga saaro kooxda halkaasi iyadoo oo burbur xoogan loo geystay toga Miraale ayaa horey u ahaa mid adag oo in la galo iyadoo ay ciidamada Puntland ay kala kulmeen caqabado dhanka deegaanka iyo dhufeysyo adag oo ay sameysteen kooxda Daesh balse ciidamadan ayaa si taxadar loo wajahaya howlgalka ilaa ay ugu dambeyntii gudaha u galeen marka loo eego warbixinada ka imanaya goobaha dagaalka wajiga saddexaad ee howlgalka buuraha Calmiskaad ayaa sheegay inuu marayo gabagabo kooxda Daesh ee farxadka ayaa hadda lagu sheegay in ay ku sugan yihiin meelo kooban oo aan lahayn difaac buuxa dawladda federaalka Soomaaliya ayaa tallaabo ka qaadaysa wakiilka midowga Afrika oo taageeray shabaab warkana waxa inoo dhameystiriyay wariye Cabdullaahi Hiirad wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa shaaciyay in dawladda federaalka Soomaaliya ay go'aan adag ka gaari doonto sii joogitaanka dalka hayaha madaxa howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ee loo soo gaabay UNSOM kaas oo ku eedeeyay inuu yahay taageero al-shabaab waxa uu sheegay inuu ninkaasi caalamka u diray warbixino muujinaya inuu taageero al-shabaab isagoo cadeeyay mowqifka dawladda kiiska ninkan oo ku aadan inuu yahay mid adag golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa kamid ah fagaarayaasha uu ka yeeriyay ninkaasi warbixino uu ku sheegay al-shabaab inay dawladnimo rabaaneen oo ay joojiyeen dilka shacabka iyo waxyaabo badan oo dhaqanka argagixisada ah ninka si hayaha howlgalka UNSOM ah muddo dheer ayuu si hoose loogu xaman jiray laakiin hadda waxa muuqata inuu isqarin waayay anagoo muddo dheer ayaan ka aamusneen qof taageero al-shabaab ah ayuu noqday qof xaasid ah oo horumarka Soomaaliya ayuu noqday ayuu yiri wasiir Fiqi wasiirka ayaa sheegay in maalin kasta uu ninkaasi bixiyo warbixino khariban oo Soomaaliya ka dhigay mid guul dareysatay sidoo kale waxa uu sheegay in nacayb badan uu qabo ciidamada